بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا وعلي قدمانتين ميل كستو أدجوكتان حيدن رجينا إن شاء الله إساعد والبو خيري برواقينا كسوغنتين اللهم آمين. ولا ليال ما أنت وحان نوسو دياري موضوع ير كاسو أنا قلت لك علي إن ما أركتي إن شاء الله بهذه سنة لوقا بقلبي ونوجد دقو الدنيا دان سيدوكتين ولا ليال وامتحان dadka ku noolna imtixaan u joog waaye ibna aadka intuu adduunkan korkiis ku nool yahay imtixaano fara badan soo maraayo imtixaanadaas oo maaragtay lagu tijaabinayo iimaankiisa ama canaan looga dhigayo ama darajo sare loogu qaadayo adiga waxay doontaba ahaatee imtixaan waxaa jiro oo yani wixii adiga kula soo gudboonaadaba waa un imtixaan marka walaalayaal maanta imtixaanka aan ka hadlayno waxa waaye iyo maaragtay sidaan maaragtay uga bixi lahayn yani qalbigeena macnaha waqtiyada adag markaan ku jirno qalbigeena sidaan u dejin lahayn iyo dhibka sidaan maaragtay ilaahay baa naga saaraye aan uga dabaalan lahayn insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisa mu'miniinta ah yani waxa loo sheeg يعني علم بدنا وحن كده جيستي قفك مؤمن كأه لو ضقف مؤمن كأه سيدي أكل الدجال بدين أكل أرزاق بدينهن هذا تسكسي حتت قفك الدجال دبعا كما ما أركتي رزق نقني ست والدجال وناكسن وصح أو دين شريعة وافقسن لإما هذي ما أنت وحن كهالله يرق يدمر هرت اللي بعتذر لو كل جلعني هاي inkastoo hadda bilcagsi ay noqoto dumarka Soomaaliyeed ayaga ay noqdeen kuwa ma aragtay ayaga oo adkaysi badan dhibaatada oo dhibkii dhanba ayaga u dusha ka fuulay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeedba midii hooyo noqon doonto insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa inuu qalbigooda u adkeeyo maaragtay dad adag weeyihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaan ugu daro ajrin ay xisaabsadaan Allahumma aamin walaalayaal mawduucan hadaan ugu gudagalno waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo waxay tahay adduunka guud ahaan dhibaato ka tagan gaar ahaan Soomaaliya gaar ahaan maaragtay si qaas ah hooyooyinka Soomaaliyeed mashaakilaadka hooyooyinka Soomaaliyeed haystana waxay tahay waxa waaye in maaragtay culays fara badan ayagu u saaran yahay tarbiyadii awlaada inay awlaadii u shaqeeyaan badankooda marka dhibaatooyinka oo noocyadaas markay ku soo wajahaan walaalayaal labay noqon kartaa hadii adiga yani dadka badankood su'aal isweydiinay waxay leeyihiin aniga qof wanaagsananahay soonka salaada ku fiican quraanka aqriya hadana imtixaankan muxuu yeestaa qof walba imtixaankiisa wuxuu la egyahay hadba intuu iimaankiisa joogo laakiin dad badan waxa jiro oo la imtixaamayo imtixaankaas uu yahay in ma aragtay oo Ilaahay ugu dan leeyahay inuu soo laabto Ilaahay baa jecel qofkaas wuxuu leeyahay soo laabo marka soo noqoshadii baa dadka badankooda fahmeen ilaa man rahima rabbi arinkaas arabna maanta markiina isdul taagna walaalayaal waxaan arkay dad badan oo maaragtay iska fiigsan oo dhibaato iska haysato dhibaatooyinka maadiyan walaalayaal dadka badankooda way haystaan laakiin waxa la isku dhaafo waxay tahay qof Ilaahay u gargaaray oo culeyskii Ilaahay la qaaday iyo qof maaragtay culeyskii aan la qaadin marka sidoo Ilaahay culeyskan wala qaadaa sidoo Ilaahay nooga qafiifiya anagoo hadda xaaladii maaragtay ku nool anagiyo duruufii adag ku dhex jirno horta walaalayaal waxa loo baahan yahay mar walbo arimahaas oo kale waxa looga bixi karaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa loo laabto xaq alle in loo laabto fafiru ila Allah Ilaahay xaqiisa in loo carar adiga culeys haduu ku taabto waxa lagaaga baahan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhinaciisa in u laabatid arinta aan maanta ka digaayo aniga qaasatan horta hadalkayga maanta gabdhuhu ku socdaa arinka maanta aan ka digaayo walaashayda qaaliga ahay hadii dhibaato ay ku soo wajahdo dhinaca caruurta dhinaca maaragtay odayga dhinaca walbo ama ilmo lagu dayacay ama duruuf adag iska jirto mar walba duruuf adag jirto Soomaaliya mar walba ay adagtaa duruufta in nolosha Soomaaliya macnaha hooyooyinka sidii wax ku dhaqaan way jiraan dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala u gargaaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala u ziyaadiyo intaanaysanin Allah siiyo Allahumma aamin marka ani maanta ii sheeg ereygayga wuxuu daaran yahay hadii dhibaato ku soo wajahdo waxa lagaaga baahan yahay gabadha muslimada ahay
إن محل دهاي أديك دب نفتاد وقنقطه والله العظيم إرميسو أنا جنا مرهن حكمة جرت دهيسو مرك أليدتو والله قفنك ومهي لنايو إلا أديك أنك أتقهت معهني مرك أديك جبتنا قفنك مكبايو والله إن هذا نقولي سنين أو ذن دباتك بحينين إلا أديك نفتاد إن أوهيلي سيد معهني هذا نفتاد السيدان وجوهيليا نفتاد واحد وجوهيلي نساء إن أبني الفريسته وقت قاعدته نفتاد كل نقطة إسويدي سيد وحكا قلدن دباتة ماشي كاهيسته إلهي سبحانه وتعالى wuxuu abuuray noolo badan uu abuuray nooleyaashaas waxa kamid ah xayawaanada noocyadiisa kala duwan maxaa anaga ayagana nafaa ku jirta anaga nafaa nagu jirto anaga ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu nooga dibay dadkaas waxay yihiin aqli iyo nasiye aan ku fikirna maanta waxna ku diidno waxna ku yeelno hadaba maanta waxaan kuu sheegayaa noloshaada waad dooran kartaa inaad ka baxdid waadna diidi kartaa inaad ka baxdid hadba go'aanka adiga aad qaadato ay noloshaada ku xiran tahay معناه هذا مركز أسكولية ما أهل تلعب قاد ويحد أو كاب حساء صبر يأتكي صارت له بهني يكون نقشه شيء مركز ولا علي أما ولا شيء دي أما هوية الصومالية دي أما قبل دي وحلقة بهني هاي نفط هذه إن دي بقول نقطة وآتر هذا محقق قلنا حاجة اللي جهزتها كورت عبادة ذا كسب بالله ويسا وحياة بدنا أجر أنا قاعد أسلم لوي يدين هجاك سنين لكن أنه هجاك سنين بوق بدنا حافظ كفرن كرالي هذا أديك مركا نفسد هذا فرصة سيسيد والله قلاداتك أقول كوسو بحايا لكن نفتها فرصة وقولوا أديك هديك ورن إيشيك وأمانت ورن أد يعني عيدان باهي هذه وحبك قبنين أضح وشيء يسيد إد ما ركتي إني والله العظيم أدون كمان تدك وناك سنوي كذا ماذين مجرى قف أديبات هذا وشيء جتت أما ضيع أركو وسي ولا تنما أنتو كورة تليو كلها ولا لي إلهي الله ولا لي سان إسكبدل أخن كان كلها مجرى ولقول شيء سنة حكتها صرت هذا لأنه والأجانة كدب نوالا قاش كينا مركي أنت تاسكو كل عليه لب والبو والله أتكو جرتت هذه ما ركتي أود وحى يشك عرورته أتيس آذن هينين هذه اللي باتفر بدن أي كويسو علاس والبوكو هاي وحى وقبي حكرتي وحيت هاي والله وحى كاحق لبرك عسونا أدي قلت كذا وإلهي وإسكو بهم به وإلهي إسكو اللي والله إن بدنا كسر شيء يا أرنتس مهم جدا ولا ليال دعاء شيء مهم واي دعيسته وقتيدا لدعيسته ودعاء لا أقبلنا وحى كميده يعني وحى وناكسين إسكو أدي ساعدها أو إجابة تصالحنا ده بينك مركز جيفتي وكله حديث صحيح كسو أروري أو ده هايو مركز أدو جيف صو لنا عقدي ستي أما سو كعد صوبتها دون تو صو كعد هذه آتيرة هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه كذب استغفار لإماتي أما دعيستي دعاء اسم مستجاب وهذه أسلاتك تنوالك أقبلا مركز ولا ليال ساعد مع المهج معها وكله قطبة كدب أما هذيك لقوا بلا وقت وقطبة إلا يعسر كوكله وحالي ساعة الإجابة كجرت إن كستو الله بدينايو ساعة كهر مغربك مركو روب كدآيو وقتي الصلاة فلك آدو كتيت ولا ليال دعاء بديع دعاء وحين يقفي في نساء عليسية قلبك نجاهايو أي يقفي في نساء دعاء وقدام بين وحن كسو جبينا هذا الكيك أن إذا كل دردار معايا dhibka ku haysto socod iyo wareeg iyo saaxiibo loogama baxo dhibaatada ku haysto walaalayaal waxa looga baxaa adigoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala u laabto adigoo dambi dhaaf la imaado dhikriga iyo quraanka ku dalaadaan quraan aqoonin dhageyso isku day inaad baratid tasbiix la imaaw alla bari la imaaw af Soomaali ku bari ilaahay luqadaha ilaahay asaga abuuray ilaahay asaga abuur luqadaha luqadu san garanin male wuxuu ka noogana male ilaahay baahidaada u sheego وأن إذن جعلها إلهي درتيسة أيان ماركت إذن جعلها وحن إذن كوجسو قد بنا أرنتا وحيت هنا وحواي وحن أني نفتي إذا جعلها إذن كان نفتي اللي جعلها ديك الإسلام لماذا إيمان كمرة ما يسترنا رسولك عليه الصلاة والسلام يجري وحن وجد عينا يا اللهم كفينا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك برحمتك أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من القول والعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك نعمة تمامها والعافية دوامها وعيشا الغد برحمتك يا أرحم الراحمين لك الحمد يا مولاي ولك الشكر على نعمتك التي أنعمت علينا يا ربي يا رحمن التي لا يحساها غيرك يا ربي تادي كلنا وحن قدرايا
inta adiga ka maqan waxa ka badan inta adiga ahaysatid ilaahay subhanahu wa ta'ala mar walba hana tasuuxu nasiyay waxa naga maqan Allah nooga dhigo indheena Allah uga dhigo wax yar inay yihiin ilaahayna baahiyaheena hanoo dhameystiro ilaahay ibn aadan hanaga kaaftoomiyo walaalayaal ibn aadan waxaad uga kaaftoontaa baryada ilaahay baad uga kaaftoontaa qof walba dhibaato haysata dunyadan ku nool hadii aad aragto qof qoslaya farxsan macnaheedu ma aha nolosha inay wax walba dhameystiran yihiin adiga adoo dhibaato ku haysatad farxi kartaa ilaahay qalbiga naga farxiyo qulubta Allah noo nuuri iimaankeena Allah noo sugo insha Allah maanta arintee taladeeni iwaanadeeni intaas ku soo gabagabeynaa walaalayaal intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tagayaa fi amaani Ilaahi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.